kulan ay isugu yimaadeen mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ee deegaanka Koonfurta Soomaaliya oo ay ku taageerayeen dawladda ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Kulanka odayaasha ka soo qayb galay ayaa waxa ay ku baaqeen in nabadda iyo dowladnimada laga shaqeeyo dalkan ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah. Ugu horeyn ayaa waxaa kulanka ka hadlay Suldaan Mahdi Cabdirasaaq Maxamuud, Imaam Cumar Macalin Abshir iyo Macalin Maxamuud Cali Gaban oo ka mid ah beelweyntaasi. waxaan rabnaa anagu mas'uuliyiin inaan cadeyno inaanu raalli ka nahay, ku qanacsannahay, garab taagannahay odayaashoodii aan nahay madaxweynaha jamhuuriyadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ninka Mr. Roble Maxamed Xuseen Roble inay waqtigooda qaataan, waqtigooda dhameystaan, ummadda u adeegaan insha Allah taala inta waqtigooda ka dhiman. kama aanan maqal wali waqti kororsi kama aanan maqal ilaa hadda kuma aanan arag mataqaan xoog iyo sadbursi kuma aanan arag. annagoo ah duubabka beesha Habargidir waxaan cadaynaynaa ummadda Soomaaliyeed oo cadaynaynaa adduunyada oo cadaynaynaa dawladda Soomaaliyeed oo cadaynaynaa in aan taageersanahay garab taagannahay dawladda uu madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda ka yahay ayaan cadaynaynaa. warka duubabka beesha Habargidir waa cad yahay. magaaladan Muqdisho oo maxaa tiraahdaa aynu ognahay waxay soo martay aynu isla ognahay dhibaatooyinkii iyo xaaladii ay hore u soo martay u dooni mayno marka ugu horeysa wax la yiraahdo dagaal iyo gacan ka hadal. waxaynu doonaynaa wixii jira oo xaqiiqda oo dhabta ah in faruuriyaha lagu xalliyo oo fadal lagu xallin. waxaynu doonaynaa inay dhacdo sidii go'aanka loogu gaaray doorashadii iyo maatirada ay gaareen dawladda iyo dowladgoboleedyadu. gabagabadii kulanka ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed kaasi oo warbaahinta loo akhriyay. odayaasha beesha Habargidir waxaa soo gaaray guux ah in beesha Hawiye ay ka soo horjeedo dawladda. haddaba odayaasha Habargidir ee beesha Hawiye waxay cadaynayaan in warkaas uu yahay been abuur, isla markaana aanay jirin meel beesha Hawiye uga shirtay diidmo ku saabsan dawladda. labo, odayaasha Habargidir waxay muujinayaan sida ay uga xun yihiin ugana soo horjeedaan ereyada colaadeed ee dadka siyaasiyiinta ah ay isticmaalayaan. waxaan cadaynaynaa in aynan cidna ka ogolaanaynin in wax loo dhimo amniga iyo deganaanshaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. saddex, beesha Habargidir waxay cadaynaysaa in ay si buuxda u taageersan tahay una garab taagan tahay dawladda Soomaaliyeed ee uu madaxweynaha ka yahay madaxweyne mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha mudane Maxamed Xuseen Roble. afar, beesha Habargidir waxay xasuusinaysaa beelaha Hawiye dulqaadkii siyaasadeed ee aan soo sameynay 15 sano ee ugu dambeysay oo aan si buuxda u garab taagnayn madaxdii matalaysay beesha Hawiye, waana in la ku ixtiraamaa xilligan oo mas'uul ka soo jeeda beeshan uu ku fadhiyo kursiga matalaadda beesha Hawiye. Cabdiraxmaan Shoode, Universal TV, Muqdisho.